بسم الله الرحمن الرحيم مركب الرئيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان أبو بكر علمي وبر يانا هاي تو مسلم بانا سلامي أنا قلنا ونكسنا هاي عدي الله يلا waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo halgankii muddada dheer aan odayga ku ahaa kamaanaan tanaasulin laakiin qorshihii baan bedelay waxaan bedelay hab nabadgelyo oo wanaagsan kaasoo ah hadda deed inaan ka bilowno gudaha si nabadgelyo leh dadka reer Somaliland gaar ahaan dhaqanka iyo dowladda waxaan isla garanay inaanu si buuxda halganka u dhameystirno oo nabad leh guul leh galbeed iyo bariba lagu wada jiro dowladda Somaliland aan ka ballanay ilaa heer madaxweyne Somaliland oo wada leenahay oo ku dhisan midnimo cadaalad iyo walaalnimo hadii aan leeyahay gabagabo waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo golihiisa dowladdiisa dhammaan waxaan doonaynaa inaanu si buuxda wada shaqeyno hadadeed ana diyaar u nahay ragaygana iyo dadkaygana intaasaan u sheegay iyakana si buuxda daawadayaal waxa daawateen waa video uu ka hadlayo Sultan Wabar kadib markuu soo guriyo noqday markii labaad uu video soo saaro marka videogaas ayaanu ka hadlaynaa maanta qodobkaas ayaanu dul istaageynaa waa meesha naga daawanaysaan waa Airo TV iyo barnaamijkeena Abroad Show aad baad salaameynaa meel walba joogtaan aad u mahadsanyihiin dadka subscribe ka sameeya ku degdega inta kalena waxaan ku codsanaynaa inay sameeyaan subscribe share like ku daraan membership-ka dad baa tiiro tartiib inoogu soo biirayo aad bay mahadsanyihiin inta kalena waxaan ka codsanaynaa inay ku soo biiraan waa tahay maanta videogan ayaan ka hadlaynaa nala dhamaysta suxuf abraan ku soo dhow aad baad u mahadsan tahay casar wanaagsan baan leenahay qof walba martabada iyo maqaamka iyo milaygu joogana waan ku salaameynaa waan dhawaa waa tahay Sultan Wabar wuxuu yiri halgeekan odayga ka ahaa iyo qorshihii iyo barnaamijkii aan si nabad ah ayaan u wadayaa waa soo joogo Hargeysa soo joogo dawladda iyo salaadiintana waan ka wada hadalnay inaan dhameystiro macnaha halgankii sii wadaya soo Hargeysa joogo si nabadna uu dhameystiraya arintaas maxaa ka suurtagal ah horta waad baad maasan tahay Sultan Abu Bakar Cilmi Wabarna waan salaameynaa caafimaad iyo cibaado suuban baan u rajaynaynaa hadalka ah halgankii aan odayga ka ahaa ayaan dul istaagayaa halganku sidiisuba waxa weeyaan ama waa qori ama waa qowl ama waa qoraal ama waa nooc walba noqon karaa suldaanka wuxuu ku jiray sida uu marka hore hadda uu sheegay halgan uu dibad joog ka ahaa dadka iyo dalkiisa hadda laakiin wuxuu yiri gudaha ayaan ka bilaabayaa nidaamka Somaliland ka jira iyo maamulka oo shalay markii uu suldaanka ka carooday saami xumada iyo dhibaatada dadkiisa lagu hayo shalay iyo maanta keebo dhaama ma shalo saxsana mise maanta saxsan yahay ee laftada waa in isweydiiyo Somaliland ma ka suuloobaysaa aragtidooda iyo taariikhdooda iyo qaabka ay beesha wax u wado qaab ka duwan oo laga agfuro xafiisyo oo agtooda laga doodo oo doodo yani ku saleysan aqoon in laga agfuro moogaliin taasina waa su'aal kale labadaasaan marka raba inaan isku xiro halgankii aan odayga ka ahaa halganka meesha aad u halgamayso marka aad ka maqan tahay halgankaaga waa valid waa halgan jira laakiin meesha aad u halgamaysay ama aad ka halgamaysay haddaad ku soo noqoto halgankaasi halkaas ku dhamaanaya sida caadiga waa sida waayo waxa weeyaan dadkii aad shalay diidanayd inaad maanta ogolaato taasi waxay ka dhiganaysaa xataa inaad halgankaagii aad dhaawacday ka dhigantahay taasi waa qodobka labaad dawladda Somaliland iyo odayaashan wada hadalnay Somaliland ma waxay ogoshahay saamigii shalay ay diiday ee oo Siilaanya diiday oo Muuse diiday inuu maanta cirro ogolaado taasina waa waxaan suurtagal ahayn waxa kale oo jiro oo iyadana meesha ku jirta odayaasha suldaanku odayaasha noomuuna sheegin ma odayaal isaaqay sarkeen ما ودياشي قد بورسبي كل من ما يحوي سلادينتي دولتي سلادينتا وايو marka waayo waa in la sheego
يعني wax walba waxay u baahan yihiin raad raac salaadiinta la is arkay haday yihiin kuwa gada buursiya waa inuu suldaanka inoo sheego waayo shalay markii uu baxay salaadiintii ka daba hadlay yiri ninka kuma jirna halgankiisa qaarna way nool yihiin qaarna way dhinteen inta Allah u naxariisto marka hadii salaadiintii gada buursi yihiin ha noo sheego oo marka de shalay markii uu ka daba baxay isagan dhabarka ka toogteen maanta diidanaaba maskuur raacsan waa ina ogaana laba dawladda uu inoo sheegayo ma cirra ma maxamed cali ba ma guud ahaan nidaamkanba yani dooda ama qodbada suldaanka waxa ka maqan raad raacyo iyo faafreeb in la daba galo cidda la is arkay waayo hadii uu noo sheegi lahaa suldaanku dadkaasaan is aragnay dooda way sii furfurmeen laakiin hadda doodu way liingaxan tahay waxaana liingaxay raad raac ma laha runtii waa tahay suldaanka ammaan buu kala duldhacay madaxweyne ciro iyo ku-xigeenkiisu yiri maxamed cali iyo dawladdu yiri waa fatso ammaan buu kala duldhacay waxaa kaloo jirto asagoo weli magaalada Hargeysa 3-4 casho joogo ayuu hadalkii labaad soo saaray macna tii hore yimid tan hore soo saaray marka la eego bulshada ay laftigooda eeg asagoo weli tagin gobolkii uu halganka ka bilaabay صح waa fadsamo marka hadaladiisu waxay u egtahay in lagu dirqinayo in uu de hadalladan uu yiraahdo marka asagoo la tagin gobolkii awdal dadkiina la hadleen sidee looga dhageysan hadallo noocan runtii laba inuu kala saari suldaanka hadii la dirqinayo waa gardaro in la dirqiyo maaha sababtoo ah qof lagu la heshiiyay inuu nabad ku yimaado oo nabad dalkiisa ku soo galo haddana in la qasbo la dirqiyo waxay gaf ku tahay dirqiga waxaan ka wadaa hadallo aan macquul ahayn hadalladu macquulka ahayn de haday dirqin noqoto ama sida dhan noqoto waa halkii hore un bay maraysaa marka eeg waxa la yiri karisxun iyana ku waxla qofku waa inuu xor u ahaada aragtidiisa hadii la doonayo in la heshiiyo weeyaan hadii laakiin sidoo suldaanku u dhigay dawladda iyo eeg waxa jira erayo afgabaadsi la yiraahdo oo diblomaasi ah oo dadkii aad wada joogtaan aad madaxa u salaaxayso nidaam ragga meesha joogana rag adag oo wax iska dhicinaya ma ahane waa dad ammaan ku nool marka ammaantu lafteeda mararka qaar waxbay soo dhaweynaysaa anigu waxaan is leeyahay maadaama suldaanku weli uu soo tagin gobolkiisii uu soo weli tagin doodii muhiimka ahayd iyo lafagurki iyo suldaanku wuxuu u soo noqday iyo qaabku ku soo noqday way dhiman tahay laakiin halkan waxa dhacay falcelin aad u fara badan anigu waxaan qabaa suldaanka wuxuu la hadlayaa dadkiisa iyo dhalinyaradiisa maadaama falcelin aad u badan maadaama ay guux badan maadaama calooliyow iyo inay dad dhalinyarada xoogooda ay ka naxeen inuu suldaanka meesha tagay ay meesha ka dhacday anigu waxaan is leeyahay suldaanka dadkaas uu ku niyad qaboojinaya laakiin waxaan ognahay oo halkaan aan ku haynaa dokumentiyadii shalay suldaanka uu ka tagay oo weli sidooda u lingaxan oo u xirxiran oo cid doonaysa in aysan jirin ayaa halkaan ku haynaa marka waxaan qabnaa in suldaanka aanan de arintiisa de waa dhaqan in dhaqannimada loo daayo mar hadduu soo noqday in dhaqanka loo daayo ee laga daayo ma taqaana kelida laga gujinayo iyo sidaan dhada iyo waxyaabo noocan in laga daayaan qabna runtii waa tahay muddo 34 sano ah ay jirto Somaliland waxaad moodaa siyaasiga gobol ka soo jeedo gobolka macnaha siyaasi u hadlo gobolka inuu ka maqan halka ay salaadiinuna hadlaan Soomaa dhaqanka halsan dhaqanku ka mid yahay marka ma wuxuu mari doonaa wadadii hadda ka hor in Axmed Samatar iyo odagii kalmadiis muxuu Allah yarxamay in odagii ka soo jeeday Laascaanood galeen Ali Qalib galeen ya Allah u naxariisto Ali Qalib galeen ma wadadii tabliiqa uu mari doonaa asna nabadu sheegayo ma tabliiqeen ba kulay hortan mar hadii aynu qeexnay in Somaliland aysan ka suurtageli karin in aragti kale ay ku dhaxnoolaato tusaale ahaan reer aawd sida aragtidooda halganka kale aragtidiisa halgan aan SNM ahayn inay ku dhaxnoolaan kara hadaan qeexnay waxay noqonaysaa un de tabliiq noocaas oo kala ah oo iska qabow oo dadku inta badan aysan soo jiidan waayo dadku ma doonayaan sabaaleyn iyo baryo iyo sidaan halaya dadku waxay doonayaan ama in la kala baxo oo Somaliland la kala baxo oo godad bulshada saaq loo kala baxo hadii wax la wada yeelanayna inta saami siman way laba reer maanta ku soo haray in saami siman lagu wada yeesho labada waxaan ahayn oo soo saddexeeya ma jirto marka anigu waxaan aaminsanahay suldaanku hadii ay salaadiin kala hadda soo baxaan oo ay iyagana hadlaan
يعني dood baa inoo furmi lahayd maanta doodda waxa naga xirxiraya waxa weeye yani dadka la sheegay buuli lama sheegin oo lama oran suldaan hebel iyo siyaasi hebel ayaanu saxiixa kala qaadanay ayaanu halganka wada galeynaa nabadeed ayaanu tabliiq lama sheegin marka arintu waxay u egtahay wali midi uus ku jabtay wali u egtahay waa tahay taariikhi ahaan iyo sharciyeen iyo ma wax barnaamijka noo haysaa oo ku darayso waxaan ku darayaa halkan waxa yaala oo hadda la soo qufaya 23 bishii labaad 2014 markii uu Siilaan Yaalaw naxariis madaxweynaha Soomaaliland ka ahaa 500 oo page oo aqoonyahan iyo odayaal iyo siyaasiyiin isku jira oo ku salaysan dheelitiranka Soomaaliland loola tagay Siilaanyo si loogu qanciyo hadii Soomaaliland la wada yeelanayo in system loo yeelo halka waxa ku qoran jagooyinka boqolkiiba inta boqolleyda gadabursiga isaaq inta ay kala leeyihiin baa ku qoran yaani wax badan oo aan documenti ka sameyn doono ayaa halkan ku jira waxaad ogtahay Siilaanyo markii odayaashii arkay waa kii berbera aaday berbera uu dabaal tagay arintii lama furfurin arinta waa arinta keentay inuu Suldaan Abubakar Cilmi Wabar intuu ka caroodo oo uu arkay in odayaashiisii la yareystay uu halganka bilaabay arintii marka wali way taagan tahay haddaan marka soo qaato hadda tusaale ahaan waxa la leeyahay boqolleyda saamiga meel waliba oo hay'adaha madax bannaan kuwa dawliga yani wasiirada xildhibaanada ciidanka meel walba halka waxa ku qoran isaaq inuu Soomaaliland uu ku haysto boqolkiiba 73 kada bursina uu yahay boqolkiiba 12 waa laba reer oo isku mid ah oo dig ah oo ay ahayd inay ugu yaraan isku soo dhawaadaan laakiin in maanta kada bursigii shalay 12 ka ahaa maanta 12 ku ka sii hooseeyaba ma garatay marka sidee ay kada bursi ku qanci karaa wixii shalay intaas 16 sano la diidanaa maanta wixii oo ka sii yar haddana in la qaato sidee lagu qanci karaa marka doodani waan furi doonaa aqoon-yahanaan soo fariisin doonaa arintan la fogorto suldaankana anigu waxaan qabaa inaan culays la saarin oo u baahan yahay inuu nasto oo u baahan yahay caafimaad wixii markaa kale ku gadaamana gadaal baan ka soo sheegi doonaa waa tahay daawadayaashana qiimaha leh ee inoo soo qoray emailada commentiga warbixinada aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin meel walbaad joogtaan soo suxufiga sheegay barnaamijkan dib ayaan ka sameyn doonaa waa halginkii wuxuu ku bilaabay suldaan Wabar documentary ayaan ka sameyn doonaa ama sheeko ayaan ka sameyn doonaa arinta intaas ku soo koobaynaa barnaamijkeena maanta intaan ku kulmayno barnaamij la mid ah fi amaanillah waad ku mahadsantihiin imaanshihiina waanu idin soo dhaweyn Rowda Center waxaan diiradda saarnaa bogsashada taageerada iyo inaan dib u dhisno kalsoonida nafta waxaan u shaqeynaa si wada jir ah maxaa yeelay soo kabashada waa safar wada jir ah soo dhawaada waana idin garab joogaynaa ku soo dhawaada xarunta Ibn Qayyim ee barashada Quraanka alxamdulillah waxaan dhameeyay juskii ugu horeeyay ma sha Allah hambalyo macmacaanka iyo pizza macaan dhibaatada dhammaan adduunka ee dukaamaysiga internetka Eastleigh Soko waa jawaabta alaabtaada DJ dahabka qurxoon ka soo dalbo meel kasta Airo TV waxay ka caawin sidii loo sameyn lahaa xayeysiin ka hadlaysa ganacsigaaga nagala soo xiriir airotv@gmail.com